Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalkan Kenya ayaa maanta oo Jimcaha saxiixay sharciga cusub ee 8% canshuurta loogu kordhiyay qiimaha batroolka ee dalka. Tani ayaa daba socotay kadib markii maalintii shalay dood dheer oo buuq dhalisay ay ka dhex dhacday isla baarlamaanka gudihiisa. Xaaladuna sidan ayay ahayd. Respect, my friend, my friend, my friend. Member for Garissa. Mr. Speaker, sir. No. Can we just go ahead and protest? Sawaxan iyo buuq ayaa hareeyay goobta uu shirka ka dhacay ee xarunta baarlamaanka. Xildhibaanada ayaa ku kala qaybsamay halka qaar ay doonayeen in 16% la meel mariyo, qaarka kalena ay ka soo horjeedeen ee madaxweyne Uhuru Kenyatta soo jeedintiisa ay tixgeliyeen. Xisbiga Jubilee ayaa aqlabiyadda baarlamaanka, kuwaasoo u sahlay madaxweyne Uhuru in sharciyadaasi ay u meel marto. Golaha baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii meel mariyay soo jeedintii Uhuru ee ahayd in codka aqlabiyadda loo qaado hoos u dhigida 8%, oo hore isla baarlamaanka ay u soo bandhigeen 16%, taasoo dhalisay buuq badan iyo sare u kac laga dareemo qiimaha shidaalka ee dalka guud ahaan. Iyadoo shirkadaha qaar ay ku waayeen rukhsadda shaqo ee shidaalka ee waddanka. Shirkadaha ayaa waxaa ka mid ah shirkadda Kifeda, taasoo lagu eedeeyay inay hormuud ka ahayd kacdamo dadweyne oo looga soo horjeeday qiimaha shidaalka lagu kordhiyay. Masar Kenyatta ayaa horey u diiday dibna u celiyay baarlamaanka canshuur kordhinta shidaalka, taa oo 2 sano ka hor qorshuhu ahaa in sanadkan la hirgeliyo 16%. Uhuru ayaa ballan qaaday saxiixa kadib in si wanaagsan loo maareyn doono kheyraadka dalka, sidoo kalena uusan ka laaban doonin la dagaalanka musuqmaasuqa oo haatan mas'uuliyiin xilal haya iyo kuwa horey u soo marayba ay u xirxiran yihiin. Golaha wakiilada ayaa shalay Khamiis ahayd taageeray madaxweynaha, taa oo fursad u siisay in uu maanta qalinka ku duugo. Goobta madaxweyne Uhuru Kenyatta ku saxiixay biilkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto, hogaamiyaha aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale iyo hogaamiyaal kale. Masar Kenyatta ayaa sidoo kale saxiixay sharciga ilaalinta xeebaha oo qayb ka qaadan doona xoojinta amniga iyo sidoo kale nabadgelyada badda. Sidoo kale sharcigan ayaa xakameyn doona kalluumeysiga sharci darrada ee ka dhaca waddanka Kenya. Si kastaba, meelmarinta sharcigan ee madaxweynaha maanta saxiixay ayaa waxaa la filayaa in wax badan uu ka bedeli doono ama uu ka kaabi doono kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka. Cabdirasaaq Sheekh Xasan, Dambaal Television, Nairobi.